وهاجاك ugu dambeyntiina waa tii loo oran jiray tayno maqalaabatii kala ka daran haddaba taan maanta idin haya waa tii ugu darayd ninuu dhashay wadanka Hindiya ayaa waxa uu labadiisa waalid sheegay inuu maxkamad ku geynayo in markii isaga ay dhalayeen haddaba isaga laftiisa aanay haba yaraatee kala tashanin ninkan ayaa waxa uu leeyahay inaanu isagu dooranin inuu dhasho ee labadiisa waalid ay u dooreen labadiisa waalid oo haddaba labadooduba gar yaqaanaa ayaa iyaguna waxay leeyihiin dacwadda ha bilaabo oo maxkamadda horteeda ha ka cadeeyo isagoo aan dhalaninba war hadda sida aan uga talshan lahayn amaba aan uga tala gelin lahayn inaanu dabacsannahay inuu dhasho waa arrin la yaab leh ninkan oo haddaba 27 jira ayaa magaciisa waxa lagu sheegay Rafael Samuel waxaana ninkaasi uu sheegay inaanu isagu dooranin amaba aanu doonaynin amaba aan laga tashanin markii uu dhalanayay haddii aad hore u dhageysatay aad maqashay heesta abwaanka weyn ee Cabdiqays ahayd ku dhalan maayo meela caruurta lagu daryeelaynin ninkan isagu waxa uu leeyahay waa ninkan Hindiga ah daryeel iyo daryeel la'aanba lagama tala gelinin inaan dhasho waxaan u sheegayaa buu caruurta oo dhanna inaanay wax mas'uuliyad iska saarin waalidkooda oo haba yaraatee aanay daryeelin oo aanay ilaalinin oo shuqulaanay ku darsanin waa sida isagu uu ku doodayay maadaama markii horeba aan lagala tashanin buu caruurta hawsha xoog leh ee la gelinayo iyo tartanka iyo halganka dhinaca nolosha ee cusub u bilaabmaysa in iyagana laga tala gelinin haddaba waalidkii ninkan mara bad buu galay oo labadooduba gar yaqaana ama loo yaraaba waxay leeyihiin balkan intuu maxkamadda horteeda yimaadaha ka cadeeyo sidii aan ugala tashan lahayn arinta ku saabsan dhalashadiisa isagoo markaasi dhalaninba ninkan waxa uu sheegay oo uu ku dacwiyay kala waliba iyaba yaabe oo waliba yaabkii inuu isagu waalidkii aad iyo aad u jecel yahay aad iyo aad loo ixtiraamo xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeyo laakiin waxa uu yiri waalidkii iyagu dan iyo muraad toona igama laha iyagu baa iska kay dhalay buuri laakiin xiriirka iyo wanaaga iyo weyneynta aanu sameeyo mid lamida iyagu ima sameeyaan buuri dhinaca kale waxa yeera kaba siiyaa badan haddaba inuu ninkan leeyahay noloshaydu waa mid wuxuu yiri aad iyo aad la yaab u leh oo aan aad iyo aad ugu raaxaysto laakiin wuxuu sheegay in markii uu isagu dhalanayay aan nolosha inkastoo uu ku raaxaysto haddana aan lagala tashanin oo iskuulkan uu galay iyo shaqada ay tahay inuu raadsaday iyo jiritaankiisaba aan isaga wax tala haba yaraatee laga siinin bal hadda ninkaasi dacwadda uu bilaabo iyo waxa ay ku dhamaato iyo haddii maxkamaduhu ay ogolaadaan inay qaadaan mar dambe ayaanu idinla socodsiin doonaa waa sheeko la yaab leh iyadana ugu dambeysay wararkii caalamka